السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أد baan idin salaamaya bulshada Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxay inoo joogtay qaybtii koowaad oo inoo dhamaatay barnaamijkii la dagaalanka nuurka ama la dagaalanka diinta islaamka diinteena suuban waxaan idinla sheer garayn doonaa qaybtii labaad ee sheekadii imtixaanaha inoo ahayd markaas ayay cabsi igu abuurantay waxaan jeclaystay inaanan halkan imanin waxaase cod gudaha igala hadlay uu igu yidhi xog badan aad ogaatida adkayso cidda ila hadlaysa ma garanayo ee berri dambe ayaan ogaanayaa inuu igu shaqaysanayo xoog ka awood badan kuwan aan hadda ku biiray bawl waa uu dareemay in buuq igu furan yahay waxaana uu ii sheegay markaan koro salaanka kala sarreynta in cabsidu iga bi'i doonto laakiin la iga baahan yahay nafurid laxaad leh wuxuu si toosa igu sheegay baahida xilligan keentay in loo baahdo dad Soomaali ah oo gudaha ka dagaalama waqtigu waa uu nagu adkaaday in dibadda aanu kala dagaalano waliba wax walba waa isbedeli doonaan marka la gaaro December 22 sanada 2016 waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaasi wax walba isu bedelayaan waxa aad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda waxa uu ii sheegay in xog badan aan loo sheegi jirin xubnaha Dag Marowpon aan nasiib u helay in la ii furo sirtan waxaa la siin jiray inta darajadoodu ugu hooseyso 22 cidda fashilisana xukunkoodu waxa uu ahaa dil buu yiri waxa uu yiri hadda sixirka aanu dhulkaasi kula dagaalami jirnay waa uu naga istaagay 2012 waxa kor u kacay quwadda ruuxiga ah ee aadamaha oo halis weyn ku haysa qorshe weynaha aanu ku dhaxlayno awoodda dunida December 22 sanada 2016 marka la gaaro waxaa cirka ka soo muuqanaya xidig cusub oo awood badan xidigaasi marka uu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasto aanu ka leenahay dhulka Soomaalida buu yiri dagaalkii hore ee noo qorshaysnaa waanu fulin doonaa inta aan la gaadhin sanada 2016 dhulka Soomaalida waxaanu qorshaynay in 5 maamul loo qaybiyo waxa sidoo kale 1984 aanu miiska soo dhignay in marka la gaaro 2020 aanu dhulka Soomaalida ka sameeyno 10 dawladood oo mid kastaba ay mid kale cadow ku tahay halkaas ku marinaya ayuu joojiyay hadalkii waxaana uu ii sheegay in xogta inta hadhay la isiin doono markaan fuliyo howlgalka koobaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii madooba ayuu iga saaray waxaanu ii keenay qol dhiig ka soo urayo biyo ayuu madaxa igaga shubay waxaana markii koobaad u soo dhoofay dalkayga hooyo anigoo cadow ku ah 22 Janaayo ama July sanadii 2007 ayaan ka soo degay madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal cabsi ayaa dabashay qalbigayga waxaase hore iigu soo sheegay wadanku in aanu lahayn sirdoon difaaca qolada qure ee la igala dardaarmay in aan ka feejignaadana waa qolo wadanka ilaaliso oo suuqa iska joogta dadkuna aanay aqoon awoodooda iyo wajiyadoodaba judhiiba 2 guri ayaan ka kala kareystay masallaha iyo jigjiga waa 2 xaafadood ee aad hawlahaaga si fiican ugu hufshan karto waxaan ku talo jira inaan hantiyo dhalinyar badan oo gabdho iyo wiilalba leh waxaan ku kasbanayaa lacag iyo indhasarcaad mustaqbal qurux badan ayaan u sawirayaa labadaas guri ayaan kulanka kula qaataa hawlihii oo meel fiican ii maraya ayuu ila soo hadlay waxaana la igu amray inaan tago gobolka Sanaag oo aan ka fuulo buurta Cirshiida labada habeenimo ayaa fuulay subaxii ayay fariin ii soo direen oo yiraahdeen xalay waxaad fuushay buurta sida sirta wadankaasi waxaase la faray in si degdeg uga soo baxo dhulka oo ay noloshaydu khatar ku jirto dhaadhac daala markii aan marayo ayuu nin cawlani nagu joojiyay buurta hoosteeda waxaana uu igu yiri kuwa ku soo diray Sanaag ayaa awoodoodu ku ilaan doonta gaarsi walaalahaaga madow cabsi ayaa igu dhacday waanan baqay ilaa aan ka soo degay garoonka Heathrow ee magaalada London Paul Macmillan ayaan ku booqday xaruntii ururka si diiran ayuu ii qaabilay wuxuu ii sheegay in aan gaadhay meel ay iyagu ka baqaan wuxuu ku daray inay Sanaag qorshe ka leeyihiin hadda waxaan ku farayaa bog kale oo sir ah waxa uu yiri intii aan ku mashquulsanayn dagaalka Ciraaq halkan waxaa laga taagay calan tawxiid leh waanu garan weynay halka ay naga hoos martay 1998 ayaanu ogaanay in awood ka soo baxayso halkaasi arrinta ayaa ay ka wada hadleen Ingiriiska Mareykanka iyo Israa'iil Ingiriiska iyo Israa'iil waxa ay isku raaceen in la dagaalamo Mareykanku si waxa uu yiri aynu eegno sida ay u soo baxdo hadda waanu garan laanahay si aan wax yeelo
wuxuu iigu daray inay ciidamo geyn doonaan badda cas iyagoo abuuraya budhcadbadeed ay ka dhigtaan foodsaaro iyo sabab ciidamadooda ay u keenaan badda. waxaanan arkayaa qorshihii oo sidii uu Mark Millan iigu sheegay u socda. taas waxaa ka daran ta maanta socota. waxa uu si cad iigu sheegay 2016 inay Somaliland ka soo weerarayaan dhinaca bari. qaybta labaad ee barnaamijka intaasaynu kusoo koobaynaa. qaybta saddexaad isugu imanno waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala